kusoo dhawaada barnaamijkeena qoraalada mucashiqiinta. gabar ayaa soo qortay maxaan u weynaa qofka marka aan si dhab ah isku siino. Maxamuud Darwiish ayaa mar yiri waxaa laga yaabaa sababta ay bisha u qurux badan tahay inay tahay fogaanshiyaha ay fog tahay. Marna waxa uu yiri waxaan sugayaa maalin qurux badan taasi uu mala abaalkayga ii sameeyay. Wiil ayaa soo qoray waqtiga ayaa iga kaa fogeeyay ee jaceylkaaga wali waa uu igu dhex aasan yahay, saas ay tahayna wali waan ku sugayaa. Markuu ogaaday Maxamuud Darwiish jaceylkiisa Riita inay u shaqeyso hay'ad sirdoonka Muusaad, waxa uu yiri waxaan ku jeclaa si khilaafsan qabiilkayga, magaaladayda iyo dhaqankayga, laakiin waxaan ka baqayaa haddii aan dartaa u iibiyo qof walba adigana inaad aniga i iibsato aanna ku soo dhamaado niyajab. Mar ayuu haddana waxa uu yiri waxaan dareemay mar kale in dib loo qabsaday dhulkayga hooyo, isagoo kala jeedo qalbigiisa iyo dhulkiisaba in la isku darsaday. gabar maseer badan ayaa soo qortay marnaba ha ila barbar dhigin cid kale, hadday iga fiican yihiin iyaga u tag. Qof ayaa isagana yiri waxaa laga yaabaa inaanan mar kale kula kulmin, waxaa sidoo kale laga yaabaa inaanan ismac salaameynin, laakiin marnaba kuma ilaabi doono oo waxaa tahay xusuusteyda. Wiil ayaa isagana yiri labadeena waan ku guul dareysanay jaceylka, adiga waxaad ku guul dareysatay inaad i jeclaato, anna waxaan ku guul dareystay inaan adiga ku naco. gabar ayaa idan tiri adigaan ku ahay hadda, waana ku ahaan doonaa weligay, waxaana ahay neeftaad neefsanaysay, waxaan sidoo kalena ahay dhawaaqa garaaca wadnahaaga. Wiil ayaa isna soo qoray qayb ka mid ah ayaan ahay halka adiguna aad tahay qayb aniga iga mid ah, mana burburi doono jaceylkeena oo waxaan rabaa in aan kuu rameeyo riyadaada. soo qortay jooji in aad iska dhigto inaad necab tahay xiriirka, xaqiiqda ayaa ah inaad jeceshahay qof kala jecel. Wiil ayaa soo qoray waxaa laga yaabaa in ay sax tahay in dadka kugu caajisaan marka aad siiso jecel xad dhaaf ah. gabar ayaa ayadana soo qortay hal nolol, hal jecel, hal qalbi, hal qof, adaa mar walba ii ah. Wiil ayaa isna soo qoray maalinteyda waxay ku bilaabantaa kuna dhammaataa adiga ka fikirkaaga. gabar ayaa tiri sababta kaliyoon kaaga fogaanayo waa inaanan dareen lahayn, haddii aan adiga ku taabtane nafteeda dib ayaan u helayaa, laakiin kulankaaga waxa uu iiga dhigan yahay anigoo qalbigayga waynayo. Wiil ayaa isna soo qoray ha ka walwalin, maalin iyaga ayaa aqoonsan doono waxa ay iska lumiyeen. gabar ayaa soo qortay weligaa naftaada ha ugu wicin rag haddii aad ka seexatay ayadoo dartaa u ilmeynayso ama qalbiyan xanuun u dareemayso. wiil ayaa soo qoray 5 sano ayaan kula hadlayay ereyo jecel, shalayna waxaan arkay ayadoo guursanayso nin darawal ah. gabar ayaa ayadana tiri waan ogahay in aan ku xumahay jaceylka, laakiin dhammaan jaceylkan ku siinayay waxa uu ahaa mid dhab ah. wiil ayaa isna soo qoray qabso gacanteyda, ina aamin waxaa kuu huri doonaa nafteyda kaliya si aan kuu farxad geliyo. gabar ayaa ayadana soo qortay qof si dhab ah kuu jecel kaama tegi doono, mana kaa quusan doono si walbo ay xaaladaha u adag yihiin. wiil ayaa soo qoray isagoo aad u xanaaqsan xataa haddii aan mar kale ku arko mar kale dib kuuma soo fiirin doono. gabar ayaa soo qortay haddii aan qof mudneen in la jeclaado aad u jeclaato gabaran qofka mudan sideed u jeclaan kartaa. wiil ayaa isna soo qoray daqiiqad yar ee isfahan daro ah oo dhacda wuxuu ku ilowsiinayaa kumanaan mar aad soo wada qaadateen jaceyl wada jir ah idinkoo ku faraxsan. wiil ayaa isna soo qoray shaydaanka intuu uu gaari waayay qofteyda ayuu maskaxdeeda soo geliyay in kelinimada ay fiican tahay, waana sababta aan hadda u kala fognahay. gabar ayaa ayadana soo qortay haddiiba aysan kaa masiirsiineynin ayada si dhab ah kuuma jeclo. wiil ayaa isna soo qoray qalbigayga waxaan weydiiyey goormeed deganaantu imaanaysaa, qalbigaygana waxa uu ku jawaabay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka lagu dhaho. aan ka faa'iideysto fursadani dumaashidiina waxa aan leeyahay dadka waxa ay dhahaan marka aad hesho naftaada wax ayaad dareemaysaa, laakiin markii aan ku helay waxaan dareemay wax ka weyn dareenka, waxaadna ka gudubtay nafteyda
adigoo qalbigayga ka dhistay guray. Waxaad noqotay xasiloonideeda markaanan xasilooni dareemeynin. Waxaadna tahay sababta jaceylka uu dareenka iigu yeeshtay. Keliya kuuma aqoonsanayo qof kale ee waxaan kugu xasuustaa sida nafteyda oo kale oo sugayso nolol kale oo adiga ah. Noloshaasina waxaadna tahay qayb iga mid ah aanan aqoonin inta mar ee aan u xiiso ilaa aan la kulmo. Qofkii ugu dambeeyay ayaa isna yiri, haddii jaceylkaaga aan la waalanayo, haddaba aan waayo maskaxdeeda. Ma ogid xitaa waxa aad igu samaysid, laakiin ogow magacaaga waxa uu ku dhex saaqay qulqulka dhiigayga. Codkaagana waa luuqad ay fahanto nafteyda, mana ahan quruxdaada awgeeda ee waa qaabka aad ii soo fiirinaysid, taasoo igu noqotay mid sixir ka daran. Haddaba haddii aad intaan inala soo gaartay, isku day inaad muuqaalka like gareyso. Barnaamijkanina waa barnaamijkeena qoraalada mucashaqiinta. Halkaanina kala soco Jimco walba hadduu Alle idmo. Nabadgelyo.